waa kuwii 10 ka cayaaryahan ee ugu sarreeya Olimbikada asal ahaan Soomaalida. Qaybta 1. 10. Ibraahim Maxamed Aadan. Wakiil masaafada dhexe u matalaya Soomaaliya ciyaarihii Olombikada 1996 dibna Mareykanka ee Sydney. Inkastoo uusan gaarin finalka, wuxuu ku dhamaystay 26aad wareegii koowaad ee Australia. 9. Ibraahim Cukash Cumar. Waxa uu Soomaaliya u matalay 2 ciyaarood oo Olombikada ah, oo ay ku jirto in uu semifinalka gaadhay 1984. 7. Xasan Meecaad. Orodyahanka Soomaali Mareykanka ah ayaa u soo baxay ciyaaraha Olombikada Rio 2016 isagoo ku dhamaystay kaalinta 11aad. 8. Abdihakem Abdirahmaan. 5 jeer Olympian u ah kooxda USA ee masaafada dheer. Dhamaystihiisii ugu wacnaa waxa uu yimid Sydney 2000, halkaas oo uu galay kaalinta 10aad guud ahaan. 6. Abdi Bile. Orodkii hore ee 1500 mitir ee adduunka ayaa kaalinta 1aad ka galay adduunka masaafada dhexe 1989. Dhaawacyo ayaa dib ugu celiyey ciyaarihii Olombikada, laakiin weli waa haliyey Soomaaliyeed. Waxa uu ku tartamay 2 Olombikada 1984 iyo 1996, isagoo galay kaalinta 6aad 1996. Waad ku mahadsan tahay daawashada. Riix badhamada like iyo subscribe si aad u hesho muuqaalo badan oo sidan oo kale ah.